بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، الموضوع كانوا كلام لا وحكوا في عنان لهيد عندي تخصصات كاله هنا كورنته siiba dad iyagu caafimaadka ka shaqeeya, laakiin bal wixii alla ka qadaro waxay dadkaasi qoreen ayaynu isku dayi doonaa inaynu wax ka soo naqlino ama wax ka tilmaamno. bini aadamku waxyaabaha ugu dhibta badan la uu isticmaalo waxaa ka mid ah wax jirkiisu diidayo, caafimaadkiisu aan ogolayn, oo isku qasbo ilaa iyo marka dambe uu u baahdo oo noqdo shay ka mid ah baahidiisa. marka laga warramayo shiishadda ama naarjiisha, waagii horaa qumbaha geedkiisa halka biyaha loogu shuba ahaan jiray, dabeetana tii asianka ee ay indiya iyo dhankaasi isticmaali jireen juusul hindiga qumbaha lagu samayn jiray, saa daraaddeed baa naarjiil loo bixiyey. intaynan xukumka sharciga iyo adraarta mujtamaca iyo ka warramin muxuu tahay aan isweydiina marka hore. ay waxay dhahdaan alxukmu cala shay farcun can tasawuri. shay inaad xukunto oo tidhaahdo waa xun yahay, waa wanaagsan yahay, waa xaaraan, waa xalaal, waxuu farac ka yahay waxa ka horeeya inaad shayga garato marka hore muxuu yahay isagu. wakhtigaynu hadda joogno dunida waxyaabahaasi la cabo daraasaad cilmiyo aad u tiro badan baa lagu sameeyey oo mutawafir ah, meel kasta yaalla, jaamacaad sameeyeen, researchers sameeyeen, dad badani sameeyeen, laakiin waxaad moodaa inaanay dadka weli gaadhin cilmigaas sababo badanba daraaddood. nimanka lacagta ka faa'iida oo dacaayaad dhinac wada oo iyagu tv-ga mid sigaar cabbaya iyo mid wax burburinayo faras fuushanoo caafimaad qabo ordayo kuu soo saaraya, iyo dadkeenna dunida saddexaad oo jahliguna ku badan yahay, dowladuhuna aanay danaynin in badan waxyaabaha precautionska caafimaadka ummadda loo sameeyo. waayadan dambe yurub iyo north america ba aad baa loola dagaalamay, dowladihii joogay ula dagaalameen. haddaba muxuu ku kala gedisan yahay sigaarku iyo shiishadda iyo wixii la mid? waxay ka kooban yihiin waa 3 shay. maalan sigaarku waa tubaakada nooceeda, nooca ay tahay, iyo lafaafadan yara ku duuban, iyo filtrationka nooca buushka ee lagu xidho. markaynu eegno nooca tubaakadu waa kala noocyo. qaar waxay dhahdaan waa fire cured, markii processanka markii la soo hagaajinayay sida iyagu sheegayaan, qaar dab baa lagu soo hagaajiyaa oo inta badan waa tan afka la gashadee lagu canka la geliyo, tan sanka la geliyo, tan beebka lagu rido. inahaasi waxay yidhaahdaan waa fire cured, waa kuwa dabka lagu farsameeyey. waa Tennessee iyo Kentucky iyo Virginia iyo meelaasaa laga bayraa Maraykanka ah. qayb kale way yidhaahdaan Turkish tobacco bay u bixiyeen, laakiin Turkida, Greega, Bulgarianka, Macedonia, Yurubta halkaasi aa soo saarta waa sun cured bay iyada yidhaahdaan. iyadana cadceedda lagu farsameeyey, waana highly aromatic. waxyaabahan waxduudgeeneeyana aad bay ugu jiraan, iyadu especially beebkay u badantao lagu cabbaa. kuwan sigaarada iyo waxaan lagu cabbaana waxay dhahdaan waa pearly tobacco, waa air cured, waa hawa lagu farsameeyey. idan waa qaar cadceed loo dhigay, qaar hawa lagu furay,
qaar dab lagu furay sida loo process gareeyaaba kala gedisan saa daraaddeed bay u kala gagadisan tahay urteeda iyo dhadhankeeda iyo waxaasi waxay yidhaahdaan inta la og yahay 4,000 oo maado wax ka badan oo chemical compounds saba ku jira marka yara sigaara habada yara sigaara 4,000 oo maado chemical compounds wax ka badan wuxuu dambe qaarkood baa ilaa 7,000 gaarsiinaya waxa ka mid ah bay yiraahdeen kontaneeyo mawaad ah oo la isku raacsiisan yahay inay yihiin waxyaabaha kansarka keena carcinogenic ay yiraahdaan waa mawaad cancer causing ah la isku raacsan yahay inay kansarka keento waxa kale ku jira bay yiraahdeen ilaa 400 oo maado tii hore 4 ku baahay Soomaha ilaa 400 oo maado toxic ah suma ah habada yare sigaarka ilaa 400 oo maado suma ah ku jira waxa uu caansan 3 kuwa kalena waynu sheegi waxa uu caansan oo inta badan maqashaan nicotine maada la yiraahdo nicotine John Nicot waa safiirkii Faransiiska ee u doodi jiray sigaarku inuu caafimaadka u fiican yahay berigaan la isbaranin dabeetana suntii ay ka heleen koowaad bay isaga magaciisa ka dhigeen ay nicotine u bixiyeen nicotine waa maadada ku jirta idmaanka keenta inuu qofku walfo oo ka go'i waayo waxa kale oo uu baahdo oo uu xaraaradoodo waa maadada xaraarada keenta waxa kale oo ku jira taarku waa daamurka maxaa tiraahdaa laami baa ku jira waxa kale oo ku jira carbon monoxide ku waa qiiqa gaadhigu soo daaya intaan oxygen-ka la kulmin waa sunsunaha ka mid ah kuwa dib baan ka sharxi doona waxa ku jira bay yiraahdaan maadadan DDT-da la yiraahdo DDT-da berigii hore beeraha xayawaanka galeen jiray imka waa mamnuuc dunida in lagu beerana xataa lagu shubo suntaas waa ku jirta waxa ku jira cadmiumku baaterigan gaadhiga wax ka mid ah waxa ku jira weeyaan waa maada thaqiila waa maadooyinka inta badan kansarka sababka ku dhaca iyo kansarka borostatada ku dhaca keena buu ka mid yahay waxa ku jira benzene waa industrial solvent waa bahal oilka laga soo saaro oo inta badan waxay keentaa bayna xanuunadan leukemia-da la yiraahdo kansarka dhiigga ku dhaca waxa ku jira butadiin oo loo isticmaalo rabadhka samayntiisa waxa ku jira polycyclic yani nooc badan oo kaarboonka ka mid ah oo DNA-da bini'aadamka hidasidihiisa burburiya waxa ku jira bay yiraahdeen polonium 210 waa maada radioactive sama taqaaniin waxyaabaha khatarta ee radioactive-ka ee dadka dila waa maada ka mid ah waxa ku jira maadada culus ee chromiumku waa maado marka hore adaygeeda daraaddeed dayga sama taqaaniin ninkii tumaala ma ku jiraan farsamo yaqaano birta marka la qorayo afka yara hore adaga lagu qoro late machine-ka iyo wixii la mid ah waxa yara wax qora waa bir yaro adag waa kaasi wax laga sameeyo waa chromium oo sida ka loo manufactureeya inta badan loo isticmaala waxa ku jira arsenic poison-ka la yiraahdo oo dhirta lagaga ilaaliya xarka iyo waxaas inuu galo waxa kale oo lagu sameeyaa jiirka lagu laayaa waxa ku jira formaldehyde waa maado sababta inta badan kansarkan cunaha ku dhaca meydadkan la ilaalinayo ee muusimada iyo meelaha la dhigana waa waxa la mariyo xasharaadka iyo waxa lagaga ilaaliyo waxa kale oo loo isticmaalaa painting-ka rinjiga marka la sameynayana waa lagu isticmaalaa
waxa ku jira maaddo la yiraahdo nickelku inta badan lung infectionska waa waxa keena birta la mariyaa oo daxalka ka ilaalisaa birta daxalka laga ilaaliyaa nickelka waxa ku jira berylliumku waa mawaad khatarta ah nuclear reactorska baalada soo saara nuclear weaponka iyo waxa la mid ah waxa lagu daro weeyaan waxa ku jira ethyl oxide waa maado qalabka dhakhaatiirta maadooyinka lagu nadiifiyay ka mid tahay waxa ka mid ah maadooyinka ku jira butane gasku baashan ay sigaarka ku cabaan liquidka ku jira weeyaan dabkan baashan gaaskan dabka laga shidayo liquidka yara ku jira weeyaan waxa ku jirta ammoniyadu waa detergent musqulaha lagu maydho kaadida baasha lagu tirtiro weeyaan kaadida casaankeeda baabaysa ammonia baa la yiraahdaa waxa ku jira tolinku isna waa solvent waa mudhiib oo waxyaabahan qolada industry-gu maadooyinka aan dhalaalin lagu dhalaaliyo waxa ku jira methanol kama taqaanin dayax gamceedada cirka loo dirayo shidaalka lagu shubo weeyaan gamceedka cirka loo diro shidaalka lagu shubo ayaa methanol la yiraahdaa waxa ku jira naphthalene wa qatil al-'af sariiraha ama jirka bini'aadamku markuu dhinto xayawaan cunaa jira oo dadkan allergic leh la yiraahdo sariirahooda waa in laga ilaaliyaa waa sunta lagu laayo baasha xayawaanka yar sunta lagu laayo weeyaan waxa ku jira cyanide hydrogen غرف الاعدامka meelaha dadka lagu dilayo ama xoolaha lagu dilayo waa hawada lagu furo oo sunno dadka laysa waxa ku jira zarniikhu uranjada cad sunteeda weeyaan waana waxyaabaha wadna xanuunka keenay ka mid tahay waxa ku jira acetonku dumarku bahashan ay ismariyaan xamuurada waxa lagu maydho waxa tirahdaan xamuurada iyo waxa gooya taas acetonka ay ka sabaysantay kaasa ku jira Soomaalidu tandar iyo waxba iska yiraahdaan waa bahashaasi waxay ka samaysantaa acetona waxa ku jira waxa mawaadan sheegaya sheegay qaybaha ugu badan waxaan ka soo naqliyay cancer research-ka uu leeyahay UK wadanka Ingiriis qaybta caafimaadka kansarka baadha markay ka waramayaan mawaadda sigaarka ku jirta iyo waxyaabaha poison keena any book ka waramaya ama waxyaabaha kansarka ka waramo dhawe marka ay ka waramayaan waxay tilmaamaan mawaadda sigaar ku jirta noociye waa maadda macruufa maanta waxaan leenahay ilaa 400 oo maaddo oo sun ah oo la garanayo sunnimadooda ku jirta waxa ka mid ah mawaadkaasi aynu sheegayno maadada ugu caansan ee nicotinku waa aqaar mukhadara nooc min maandooriyo kala noqon kara waana highly addictive bay yiraahdaan waa waxyaabaha marka la cababa markiiba qofka jirkiisu uu la qabsaday uu u baahdo khamriga isaga ka baahi badan yani sigaariyabku baahida uu sigaarka uu hayaba waxay ka badan tahay khamriyabku baahida uu khamriga u hayo addiction ka markay noqoto waxa addiction xun sigaarka addiction xun waxay yiraahdaan small dosage hadaad ka qaadato waa stimulant waxyaabahan aad moodo inay qofka kiciyaan qofka xabada koowaad markuu ku dhufto waxaad moodaysaa inuu fariids mooday inuu toosay oo kale hurdo inuu ka kacay dosage-ku hadduu sii bato waa depressant waa waxyaabaha qofka dumiya ee nervaha iyo maskaxda xidhiidhkooda iyo unugyada xidhiidhkooda kala dhex gooya signalska maskaxdu soo diraysu joojiya waa depressant markaa waa lethal poison bay yiraahdaan oo hadduu bato wadnaana waxbuu yeelaa xididada dhiiggana waxbuu yeelaa oo xididadan hoose cagta ku yaala dhakhaatiirtu ma qasho ilaa qofku sigaarka iska daayo mooyaane waayo way adkaadaan marka waxay yidhahdaan bisharta haddaad rabta in lagaa qalo waa inaad sigaarka joojisaa wuxuu khalkhal geliyaa bay yidhahdaan hormoonnada qofka bini'aadamka ah muudka qofka bini'aadamka ah
si kale waa mubiid lilxasharaat haddii nikotiin saafiya la soo qaado waxa lagu buufin karaa cayayaanka u laynaya siisu cayayaanka u laaya wuxuu kaloo layn karaa dhirta yaryar ee beerta ka hoos baxdana waa lagaga dilaa marka waa pesticide ama xayawaanka wax lagu laaya ama dhirta yaryar lagaga jiro weeyaan sigaarka nikotiinka ku jira bay yidhaahdeen 40 ilaa 60 garaam 40 ilaa 60 miligram haddii wariidka lagaaga mudo halkan haddii lagaaga mudo toos baad u dhimanaysaa laakiin nasiib wanaag qofku markuu cabayo mar qura ma wada qaato dhiigu mar qura ma wada nuugayo quantity-ga ku jiraana waa 1 to 2 uu yariyay sijaarada xabadda sigaarka qura ilaa 3 miligram ba ku jiro nikotiinkaasi waxa sigaarka ku jira maadada taarka daamurka ama laamiga hata lagu sameeyay madow ayaa ku jirta si kale hadaan u tilmaamo beeb waliga ma kala furto beeb la maydhaya ma aragtay beebka daamur madow baa laga maydhaa beebkan dheeray sigaarku cabaan markuu cabo hadhow muddo markuu joogaba waa la safeeyaa waa la kala furaa beebka marka la furo gudihiisa daamur baa laga jaraa daamur madow caadiya dadka sigaarka caba markay qalaan youtube-ka gala ama google-ka sawiradiisa gala waxaad ka helaysaan sawirrad bini aadam oo dhakhtar intuu qof qalay sigaariya caba wadnihi la soo saaray sambabkii qofka oo inta midida sidaa lagu yidhaahdo maalay madow saa looga dareerinayo uu leeyahay waxa weeyaan waa daamurkii uu cabay sambabkii qofka bini aadamka caadiga ah haddaad sambabka qofka caadiga iyo sambabka qofka sigaariya cabka inta la jeexaad si dhinac dhigto midna waa digsiga dabadiisa oo kale midna waa waxaas ka qofka caadiga waa casaan waa red ka sigaariya cabkuna wuxuu eegayay digsiga dabadiisa oo kale waayo daamur ba ku yaala daamurka madow daamurkani shiishada marka la cabayo biyuhu way casaadaan waa waxan biyaha caseeya ama se sigaarka markaad soo iibsato buushku waa cadaan markaad burburisana wuu casaadaa waxaan casaynaya waa daamurka idan daamur baa ku jira daamurkaasi waa maadda lazija waa maaddo dhegdhega dee daamurka saa aragteen saa daraaddeed waa maaddo culus oo sambabka fuusha oo xuwaysalaadka waxyaabahan hawada nuugo oo dhan xidha waxaa kaloo ku jira carbon monoxide baynu nidhi carbon monoxide-ku waa qiiq dee baashan la gubayaba qiiqa ka baxaya waa ilaa qiiqa dibad u nuugaysaaye qiiqa sigaarkao dhan maahe waa qayb ka mid ah waraaqdan saree gubanaysuu ka mid yahay kan shiishada cabaya dhuxusha gubanayso qiiqay soo saaraysuu ka mid yahay qiiqaasi markuu dabadda u baxo oxygen-ka la kulmayo carbon dioxide buu noqdaa kani waa inta aanu oxygen-ka la kulmin carbon monoxide baa la yidhahaa waa poison waa sun caadiya jirka hadduu ku bato dhiiggaagu shaqo tiraa oo halkii dhiiggu hemoglobintu ay oxygen-ta qaadi lahayd ayay carbon monoxide-kan qaadaa dabeetana unugyadaada jirku waxay waayayaan oxygen ku filan markaa waad dhiman kartaa ma aragteen weli qof guriga intuu dhuxul ku shitay daaqadaha xidhay oo sakaraaday markaa qofka biniaadamka way sakaraadaan waanay dhintaan haddii uu xidho dacmayd waxa weeyaan carbon monoxide-kii buu isku xidhay oo guriga ku jirta saa daraaddeed uu samoobayaa waa uu dhimanayaa haddii uu oxygen kala waayo kuwaasi waa kuwa ku sii jira ilaa 599 ingredients 599 maado ayay dawladda Mareykan ogashay in lagu sii daro sigaarka additiveska oo waxaan dhadhanka urta dabowga kulaylka waxa uu sameynaya kale waa mawaad dheeraad ah oo lagu daro lagu buufiyo tusaale ahaan mawaadda lagu daro qaar dhadhan baa loogu yeelaa مثلا كان ندير rocket fuel day xaga maceedka dabkiisa saliidiisa ama
bitroolku ku kaco maxaa loogu daray waxa loogu daray bay leeyihiin nikotiinka inuu vapor ka dhigo oo waa maxay nikotiinku inuu noqdo hawo la qaadan karo sadaradeed dab kulul buu u baahan yahay sigaarka afkiisa hore si dabkiisu temperature-ku uu kaco mararka qaarkood 950 degree buu gaadhay sigaarka afkiisa temperature-kiisu si dabkaasi markiiba uu gubi karo oo nikotiinku ay vapor la nuugi karo u noqoto ayaa loogu buufiyaa maxay shidaalka dayaxgacmeedada lagu diro waxay yidhaahdaan ammooniyada maxaa loogu daraa tan aynu nidhi musqulaha iyo kaadida iyo waxan baa lagu maydhaa oo ay waxaa loogu daraa bay leeyihin nikotiinkaasi si uu absorbable sambabku si uu nuugi karo sambabku si uu si hawl yar ugu nuugo oo ay jirka u gasho baa loogu daraa bay yidhaahdaan hadalya dhammaan waxay yidhaahdaan meelaha sigaarka lagu cabo cigarette pollutionka bini aadamku uu sameeyo 10,000 times ayuu ka pollution badan yahay bay yidhaaheen jidka ugu weyn wakhtiga rush hour-ka gawaadhidu marayso sigaarka ay dadku cabaan idan sigaarka waxaa ku jira maadooyin musartan ah maadooyin kansarka sameeya ilaa 14 nooc oo kansara laga qaadaabay isku rumaysan yihiin hadda waxaa ku jira maadooyin sun ah oo lagu sumoobo waxaa ku jira maadooyin muxtariqa gubta sida fuelskaas aan sheegayno ama butane-gaaska ayaa wax la mid ah waxaa ku jira maadooyin mukharrata mukharradku waa biraha adaga ay lahayn waxbaa lagu qoraayo kale maadooyin abaa ku jira dunida dadka dhintabay qaybta caafimaadka United Nations 2004 waxay yidhaahdeen dunida 58 milyan dadaba sanadkii dhinta 5.4 ka mid ah dadkaasi sigaar baa laayay that means 5 milyan iyo 400 kun oo qof oo bini aadam u sanad walba sigaar ku dila qiyaas ولذلك بنقول نختاري هي هذا يو حلي ورر خاطير أمريكان كويلين شر لو قبطي ولدن برهذا كسر كيا وحيل لمده أيوه هذا وحيري إن WMD جا WMD جو weapons of mass destruction بيدا هبكا وحكم هذا هبكا وحكم هذا وخطر سنة الدنيا يلا وسيجار بولي intayna leedin buu yiri nuclear weaponka hal ilaaliyo kaasi 5 milyan sanadkii ma dilay buu yiri dunida oo dhan hadii la isku daro 5 milyan oo qof ma nuclear weapon baa dila xabadan yar yar la isku garaaciyo waxaan dagaal dunida dhaco dhamaan dilin ee maxaa dila sigaar baa dila waxay yiraahdaan maalintii dunidu 10 bilyan oo xabbo sigaar ay cabtaa daqiiqad kasta bay yiraahdaan دقيقة واحدة وحلا عبا وحلا قرر إنه تربضا 8 مليون سيجارة every minute العبا every minute دونيدا 2 مليون سيجارة عبتها وما لها دقالها غوبا كسبعية شركات كمريكان كي يوحي لها المالي ولذلك أي دولتها حدين كروايين دعايات كي يوحى الله صميني يوحى الغيا بين استراحدان وروحنا هدي الوجي محلو تشوشون واي أن قصيدين شيخو ودنا دي شيوعية ده كبحي ودن كميدا أيوحو الضمعين والسجار كي يريو دي بتنا كالكوليشن اسكي السمايين دتكو ديلي عافمات كا دتكي كواي دولة ده وحا عافمات كبحضاي العق وحا خسا أيال حسابي deetana waxay dhahdeen sigaarku khasaar weyn ugu haya shirkadaha u doodaya yimi xisaab kale keenana waxay dhahdeen dadku khasaara ku hayaaye dawladdu faa'iido ku qabtaa bay dhahdeen markaasay dawladdu say faa'iido ku qabtaa ilaan waxaaba inta wasaaradda caafimaadka ay siiyaan qudaba khatar ku haysa dawladda waxay dhahdeen dhanka dawladda caafimaadka qabtaa waa laba qaybood kow cashuur badan ma ka qaadataa roodi ka soo gashaa laba bay dhahdeen waxay idinka yaraysaa taladaw fiirsan nimankan iskaar kabilaysa u fikireen waxay idinka yaraysaa da'da pensioniska
يعني qofku 60 iyo 60 jir buu pension ku dhintay hadduu caafimaad qabo bay leeyihiin dawladdu dhowr iyo 10 sanadood bay lacag siinaysaa hadduu sigaariyo cab yahay bay leeyihiin 2-3 sano idinku dhaafaya marka dawladda waxa uu soo haraya bay leeyihiin budgetkii dhowr iyo 10 sanadood qofka la siin lahaa saa daraadeed dawladdu faa'iido ay ku qabtaa bay leeyihiin dadkana wax soo saarka lahayn inay ka dhintaan dadkaan wax soo saarka lahayn inay dhintaan ayay waxay xisaabinayaan in dawladdu faa'iido ugu qabto yani ragaxadka maraya bini aadam in la laayo in laga faa'iidayo weeye nimanka sigaarka soo saaraya waxay yidhaahdaan dunida 1 bilyan 220 milyan oo qof baa sigaar cabba sigaariya cabka dunida jooga waxaana laga yaabaa bay leeyihiin 2025ka inuu ilaa 1.6 1 bilyan iyo 600 milyan inay gaari doonaan dabadan sigaarka waxay ka samaysantahay alyaaf balastiga plastic wax laga sameeyay bay ka samaysantahay oo ay yidhaahdaan acetate cellulose waxay yidhaahdaan marka ciidda lagu tuuro environmentka siday u kharibayso 18 bilood ilaa 10 sanadood bay qaadataa dabada sigaarku inay baaba'do bay leeyihiin yani environment problem bay ku haysaa bay leeyihiin dunida oo ilaa 10 sanadood qaadanaya inay baabi'i karto waxa ay sheegaan shantii qof ee dhalinyaro ah muraahiqiinaba mid baa sigaariyo caba dunida bay yidhaahdaan shantii dhalinyaro kastee dunida jooga oo da'doodu u dhaxaysa bay dhaaheen 13 jir ilaa 15 jir mid baa sigaariyo caba bay ku sheegaan qofka sigaarka in doora cabayay bay yidhaahdaan inta badan geeri kara ma leh oo aan ahayn sigaar waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan war wax sigaar u dhintay maanaan aragay war waxaan laydin leeyahay kaliya xanuun buu dhintay wadna xanuun buu dhintay beer xanuun buu dhintay asalka beer xanuunka sigaarka ah asalka sabab xanuunkan baa sigaarka ah waxay leeyihiin xanuunadan aynu haynee la leeyahay qofka u dhimanaya calool xanuun buu dhintay wadna xanuun buu dhintay beer xanuun buu dhintay ayaa kooskiisu uu yahay maxay suntan sigaarka therefore you ko odhanaynu intaasaanu cabayno waxba nama yeelin intaasaan cabaysay maalintaad gooday isagu maad u gooday ayay u badan tahay xanuunada ku dilay mostly waxa sabab u ah bay leeyihiin bahalka kan waxay yidhahdaan every 8 second ee kasta qaarna waxay yidhahdaan 6.5 second kasta dunida qof baa u dhinta sigaar 8 second oo kasta dunida qof baa sigaar u dhinta qarniga kan bay leeyihiin waxaa la rajaynayaa dadka sigaarku laaya inuu 1 bilyan oo qof gaadho dadka sigaarku laynayo hadduu sigaarku kaa yahay shiishadda miyay ka gedisan maxaa sigaarka uga warramayay waxaan uga warramayay waa kii ugu badnaayay marka hore baxdiga lagu sameeyey researcheska lagu sameeyey laakiin shiishaddu iyo sigaarku maxay ku kala duwan yihiin su-aashu waa taa haddaba shiishadda iyo sigaarku maxay ku kala duwan yihiin kow sigaarka dabkaa lagu qabtaa wuu shidnaadaa shiishadda see dhuxul baa lagu hayaa lagu shidaa laba sigaarku filter buu leeyahay ay ugu talagaleen inuu xuun reebi karo wax naflana ma reebo shiishaddana biyaa u filtara biyuhu way qaboojiyaane waxba kama reebaan qiiqa way qaboojiyaanuun qiiq kulul si aanad u liqin ayuunbay kuu qaboojinayaan inaad liqdo maxay qiiq qabow laakiin waxba kama bedelaan chemicalska aynu ku warramayna meesha ku jira waxay yidhahdaan shiishaddu waxay dheer tahay kow suntii dhuxusha way dheertay oo adigu dhuxul qof nuugayaad waxay kaloo dheertay bay idhaahdeen falavariska waa maxay qolada shiishada cabtaa waxay dhahaan waa mucasal soo maaha mucasalku yacni nakahaad ayaa loo yeelaa ur baa loo yeelaa ama ur tufaax ur saytuun ur liimeed ur caynkana ayaa loo yeelaa markaa la samaynayo ay baasha soo samaynayaan madbacadda khadkeedaa lagu qasaa lagu khamiiriyaa dabeetana uraha lagu daraa madbacadda tan dhaladeeda khamriga oo laga yaabo intaasoo kitaab inay daabici lahayd kun kitaab lagu daabici karo ayaa lagu daraa bahasha marka la khamiirinayo
dabeetana nakahaadka lagu daraa dabeetana waa la soo khamiiriyey waxay dheertay bay yidhaahdaan tubaakada kale dawladaha daba jooga bay leeyihiin oo wasaaraadku sixabaa leh hal la yareeyo waxaan ha laga dhimo hal la jeegarayo hal la soo saaro laakiin tan bay yidhahdaan cidiba ma daba joogto waa free qolada wax qastaan say u soo qasqasaan cidamba oo ka baadhaa idan waxay yidhaahdaan marka loo eego tubaakada caadiga inay ka sun badan tahay mooyaane waxba kama sun yara haddaba waxay yidhahdaan carbon monoxide-ka uu qofka shiishadda cabbaa 8 jeer wuxuu ka badan yahay normalka waxay ku tilmaamaan weliba shiishadda cabbisteedu waxay dheertay bay yidhaahdaan bahashan la wadaagayo oo xanuunada mucadiga infectious diseaseska la kala qaado sida oral herpes oo kale xanuunadan dibnaha iyo afka ku dhacaya ciridada TB oo kale maxaa la yiraahdaa hepatitis oo kale xanuunadan beerka ku dhaco kale la kala qaado influenza oo kale de bahal nin kale afka galiyada markaa afka galinaysa ka sigaarku isagunba kiisa afka galiya inta badan laakiin tan dhuuntan yar baa la wareejinayaa dadka oo dhan baa afka soo wada gelinaya marka mid TB qaba iyo mid kansar qaba iyo mid balaayo kala qababa tan yar afka la soo wada galiyo iyadu waxana waa dheertay baa la yiraahdaa waxay isweydiinta leh markaa dukhaanul fahamka ku jira 20% buu ka badan yahay bay leeyihiin qiiqanka kale daraasa waxa samaysay New Zealand waxay yidhaahdeen tubaakadan bini'aadamku cabbo daamurka ku jiraan xisaabinayna waxay yidhaahdeen sanad inta la cabbee tubaaka waxa ku jira 5 kilomitir iyo badh laamigii lagu samayn lahaa 5 kilomitir iyo badh laamigii u baahnayd in la saaro wuxuu ku jiraa bay leeyihiin sigaarka dadku cabbay waynu qaybsanay 5 kilomitir iyo badh daamuro unbaa dunida loo qaybiyey qofba in laabtiisa dhiga halkan buu ku wada jiraa markaa weeyaan daamurkii 5 kilomitir iyo badh samayn lahaa dadka laabahoodu ku jiraa bay leeyihiin daamurkoo quraba waxay yidhaahdaan ilaa 50 compound oo kansarka keeni kara daamurkoo qura ku dhex jira bay yidhaahdaan shiishaddu waxay yidhaahdaan halka shiishee la cabbay marra waaxida waxaa suurtagal bay dhahay ilaa 70 midhoo sigaara inay u dhiganto macnaheedu waxa weeyaan adigu sigaarkaagii oo dhan baad mar qura wada cabtay kani wuxuu 3 casho cabbi lahaa ayaad adigu hal session hal fadhi ayaad sigaarkaagii oo dhan ku qaadatay waxay yidhahdaan jaamacatu Virginia ee Maraykanku leeyahay mu'tamar ay qabteen nin ka hadlayo Thomas Hassenberg la yidhaahdo waa majalla طب الوقائي الأمريكية bay ku soo qoreen ayaa wuxuu leeyahay 30 qof oo 18 jir ilaa 50 jir u jira baa tijaabo laga qaaday u fiirso 30 qof oo 18 ilaa 50 jir u dhaxeeya ayaa tijaabo loo sameeyay qaarna sigaar baa la cabsiiyey sigaar cabba la yidhi qaarna shiishad cabba baa la yidhi kan shiishad uu cabbaya hal shiishada loo camiraya u dhamaysanaya kanina sigaarkiisu cabbaya markay sigaarka cabbaan iyo shiishada kadib ayaa blood test laga qaadaya labadoodaba dhiig baa laga qaadaya kan shiishada cabbayna dhiig baa laga qaadaya kan sigaarka cabbayna dhiig baa laga qaadaya waxa la eegayaa oxideska ku jira carbon dioxide iyo carbon monoxide-ka jirkiisa ku jira iyo nicotine-ka jirki dhiiggiisa ku maraya la xisaabinaya markaa natiijadii waxay noqotay kii xabadda sigaara cabbay 48 jeer buu ka batay kii cabbay halka badeecadda yani waa tajribo practical oo la samaynayo nin xabad badeecada ka laacay iyo mid xabad sigaara cabbay baa labadaba dhiig laga qaadaya dabeetana waxaa la eegayaa baladhkooda waxa carbon monoxide ama dioxide ku jira iyo waxa ku jira maxay nicotine 48 jeer buu ka batay taa macnaheedu waxa weeyaan
halka mar ee bahalka la cabaa wuxuu u dhigmaa 48 jeer 48 xabbo sigaaro aad cabtay qola kale daraaso 4 sanadood socoto Sacuudigu sameeyay oo ay ku sameeyeen 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa 13 nooc oo tubaakada shiishada lagu cabaa waxay soo saareen average nicotine ku jira inuu yahay 8/32 milligram nicotine inuu ku jiro halka xabad sigaara miduu ku jiro waxay kaloo yiraahdeen isku celcelin markaanu isku celcelinay halka shiishadii 70 midoo sigaara u dhigantaa isku celcelisahan yani marka la qiimeynayo waxa jira qolo kale oo 100 xabbo ku qiimeysay waxa jira qolo kale oo ka badisay maxaa kala badnida keenay waxa keenaya nooca tubaakada qofkan wax cabaya sidoo uu cabayo mid baa yar cababo soo afuufo midna wadnuhu isku jaraya marka qofkan wax cabaya iyo sidoo uu cabayo iyo tubaakada iyo nooceeda ay tahay iyo meeshuu ku cabayay saytay waxa soo dhanba waxay keenayaan inay kala badbataan qaar 48 tilmaamayaan qaarna 70 tilmaamayaan qaarna 100 gaarsiinayaan laakiin daraasadani waa average 13 nooc oo kala jaada baanu sameeynay bay leeyihiin isku celcelintoodu waxay noqotay 70 xabbo oo sigaara caalamul islaami yurub uu ka soo yaraanaya sigaarku way mamnuuceen yurub meel bini aadam isugu yimi oo dhan lagu ma cabi karo sigaar gaariga kuma cabi kartid tareenka kuma cabi kartid dayuurada kuma cabi kartid xafiisyada kuma cabi kartid wadada umad ku cabi kartaa iyo qolkaaga hatta meesha khamriga lagu cabo sigaarku waa mamnuuc diskoteega khamriga lagu cabo Europe iyo North America iyo waa mamnuuc sigaar lagu cabo meel dad isugu yimi waa mamnuuc hadda waxay wadaan sharci ah inay yiraahdaan guriyahana kuma cabi kartid hadda waa gurigaaga deganeed in isna lagu rakabo qiiqo lagu yiraahdo more sensitive la guriguna waa mamnuuc in lagu cabo hadda sharci ay wadwadaan xagaad ku cabi kartaa banaanka uun istaag markaad mid sigaar u baahato banaanka istaag halka sida loo cadaadiyay Yurub marka dadka waaweyn uu iska soo deynaya sigaarka inkastoo wali yar ay wadaan ciyaalku wali iskuulada dhigtay yar aad bay wali wacbaan caalamul islaami waa cagsiga وسي بدنيا سياركو سعوديغا ماشي دينتو سو دغتay jooga 15 bilyan oo xabo sigaar u cabaa 8 bilyan oo dollar bay sigaar siistaan inta ugu badan Mareykanka ma laga iibsadaa 8 bilyan hada milyan ma waa 8,000 oo milyan ayay sanad kasta soo siistaan maxay sigaar Masar halku kan 15 bilyan ka cabo 8 bilyan oo sigaar ay cabtaa Turkigu dadka degan isku celcelis boqolkiiba 760 ma sigaar cabaa tamacnaheedu waxa weeyaan duwalka Carabeed inta Carabta 200 bilyan oo sigaar ay sanadkii cabaan bay yiraahdaan dawladda Carabeed si kale aan u dhigo waxay yiraahdaan wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda caafimaadka Carab oo dhamileed oo la isku daro waxay kharash ku bixiyaan waxa ka badan intay sigaarka ku cabaan qiyaas dad muslima oo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka waxay dhakhtar leeyihiin iyo wuxuu dhan soo socda wasaaradda caafimaad iyo wasaaradda waxbarasho waxay kharash dawladdu ku bixiso waxa u dhigma maxay waxa ka badan sigaarka la cabo hadda waxba la yaabin ingiriiska Soomaalidii joogtay midhart Yamaniyiin baa la socday 467 milyan oo pound bay qaad siisan jireen qaadkii dawladda ingiriiska la jiray si kala hadaan u dhigno wadankan yar ee Somaliland la yiraahdo 524 milyan buu qaad siistay Itoobiya kaga iibsadaa sanadkii Itoobiya qaadku wuxuu yahay itemka saddexaad ay dibadba u dhoofiso dhaqaalaha ugu badan ay ka hesho 520 milyan oo dollar
ayaa sanadkii qaad laga siistaa ka Kenya laga iibsadaa kuma jiro iyo koonfur oo dhan waxay qaad u cunaysay kama hadlaan waxaan ka hadlayaa qura qaadka lagu cuno maxay Soomaaliland kaliya qaadka lagu cuno ka warramayna idan sigaar iyo qaad iyo shiishad iyo wax la mid ah halkaas oo maraya waxaynu leenahay sanad kasta dunida 30 milyan oo sigaar iyo cabba ku soo biira bay yiraahdaan daraaso 15 sanadood qaadatay oo 4570 qof lagu sameeyay waxay leeyihiin sigaarka ka cabadaaya kuwan ag jooga cabistoodu waxay mucrad u yihiin in diabetes ay qaadaan inay sokor macaan qaadaan macaan inuu ku dhaco waxay dhahaan dadka sigaarka cabba mooyaane kuwa la ag nool 600,000 oo qof baa u dhinta mid kale sigaarku cabbo kugu buufiyay dunida 600,000 oo qof ayaa u dhinta bay yiraahdaan second hand smoking sigaar labaad oo la cabay haddaba ayuha alxiba waxaasoo dhan waxaan u tilmaamayay inaan sheegno shiishadda iyo sigaarka iyo caafimaad ahaan dhibta ku jirta la tilmaamayo waxay dhahaan qofka caadiga ah dhiiggiisa marka laga qaado dhiiggiisa 3% baan caadi u shaqaynayn yacni aan oxygen-ta wadin ama ka sigaariya cabka fudud bay yidhaahdaan 20% baan dhiiggiisa shaqaynayn waayo monoxide-skii baa ku jira oo diidaya inay hemoglobintu qaado oxygen-ta mudakhinka kabiirkaana sigaariya cabka rasmiga ana 3 dalool baan dhiiggaaga shaqaynayn 30% oo dhiiggaaga ka mida bay leeyihiin si normal u shaqayn maayo tobakada shiishadan la buufinayo 10 miligram intee leegi waa milli maaha gram waa 10 miligram oo tubaqa oo 30 daqiiqo shiishada lagu cabaa 4 ilaa 5 midho sigaar u dhigma 10 miligram waxaynu tilmaamaynaa marka iyadu waxay leedahay shiishada mar la cabaa 100 midho sigaar u dhigantaa bay iyagu qoreen haddaba ayuha alxiba waxaan ka warramayaa waa waxaan nafta aad ku qasbaysay aanay nafta ogolayn ee marka koowaad matagu ku qabanayo waayo nicotine-ku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha kiciya mataga saadaradeed qofku markuu baranayo aanu jirkiisu baranin hadduu 2-3 midho cabo intuu qofku facaabo matagaya waxaan leenahay waa poison waa sun aad arkayso su'aasha dadku ku weydiinaya waxa weeye sigaarku ma xaraam ba mise waa xalaal idinkan hadaba idin weydiinayay sigaarka iyo tubaakadu ma xalaal ba mise waa xaraam marka caynka yihiin yani markuu sunta yahay ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith nabi muhammad alayhi salatu wassalam tayyibatku idin xalaalaynaya baa leeyahay al-yawma uhilla lakum at-tayyibat waxa wanaagsan baa idin xalaala waxa xumina ودين كحارنتين وينيا سيجاركم ميو حنيي بسوي ورقسي شيشة ميو حنتي بسوي ورقسنتي إذا كايد ويدينيا إلهي وحقراك يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وارجع مين هلاك يسوق ردنا إذنكم لما يسوق يسننا ولا تقتلوا أنفسكم ورنفتي إن هدلنا بإلهي وحيد هذان دلك مدنا ومرقنا إلى النفط سكشرته مدنا وحيد هذان والقتل البطيء ودلك آيرة إن آيرة لمتد دخانكم ودلك بطيئة النبي نوح تلمام يا من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحصاه في نار جهنم إنك سن عبه إن نفتي سكد لا جهنمنا يدا لقسيد ليه إلهي القرآن كوحكوا لي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وارحولها صيد صيديننا كو حولها صيد صيدية شيطان بي ولا لين باليدي شيطان الرب يجيبك قالوا
haddaan si kale u tilmaamo maxaa odhan lahaydeen ninka subaxii markuu soo kaco isagu intuu 300 shilin 400 shilin intuu duuduubo subaxii dabka ku rida ku idhaa balwada yar baan leeyahay lacagta gubaa maxaad odhan lahaydeen waa nin waalan baa odhan lahaydeen soo maaha ninka sigaarka cabaya ka waalan ama shiishada cabaya waayo kani lacagtoo quru gubay deetana iska tagay kani lacagtiina wuu gubayaa caafimaadkiina wuu gubayaa environmentkii wuu xumaynayaa kani mufsid weeyaan arrinkoo dhan wuu fasahaadinayaa lacagtiina waa gubanaysaa laakiin ninkani intuu ku yidhi balwad yar baan leeyahay ayuunbuu xoogaa dabka saaro uu iskaga tegey in lacagunbaa ka gubatay lafiisa kale wuu caafimaad qabaa idan ayuha alaxiba qiiqaas caafimaad ahaan dhib buu leeyo kansar buu keenaa kansarka afka ku dhaca kan ciridaha ku dhaca kan hunguriga ku dhaca kan sambabka ku dhaca 14 nooc kansar ay sheegaan haddaad netka gashaan bal youtube smoking intaad ku qorta gal dabeetana sawirada ku soo baxa arag ee dhakhaatiirtu ka warramaysay caafimaad waxaan isleeyahay haddaad maalin qura daawataan dib uma aydan cabteen ama qofka daawada kuwaasi dib uma cabeen wuxuu leeyahay adraar nafsiya oo waa maxay iraadadu kaa qaadaya addoon baad u noqonaysaa ilaan waa lacagta aad umadlintaba ordisaado og inuu ku dhibayee cabiidu shahwaat baad soo baxaysaa idmaamku adhagshanka waxaasu keena wuxuu leeyahay mafaasid ijtimaaciya oo majaalistuu xumaynaya oo environmentku xumaynaya oo maxaa la yidhaahdaa gaadhi sigaar lagu cabay haddaad soo fuushanaan kari maysid environmentka oo dhan buu xumaynaya qiiqa la leeyahay ha la joojiyo waxaa ka mid a qiiqa sigaarka diintaaduu xumaynaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxyaaba xalaala laakiin waxoogaa ur yaroo la naca leh ayuu yidhi haddaad soo cuntaan jamaca ha imanina basashu waa xalaal soo maaha iyo toonta iyo waxaa la yidhi haddaad soo cunto jamaca ha imanin ka war haddaad sigaar soo buufiso qurmunka la timaadid intaad hortiisa ku bakhtiso aad soo gashid wuxuu dilayaa sigaarku wuxuu sababaa albuxa almusmina bay dhahaan qufaca joogtada ah wuxuu sababaa bay yidhaahdeen in qofka urtiisa iyo dhadhankiisuba ay yaraadaan oo uu qiiqa kari bedelo wuxuu sababaa bay yidhaahdaan strokeskan maskaxda ku dhaca dadkan la leeyahay inuu dhaco stroke baa ku dhacay waa sabab ka mid a waxyaabaha sababa wuxuu kaloo sababaa jaltaadka qalbiga ku dhaca wadna istaagga xididada xidhma wuxuu sababaa tiibayda sambabka ku dhacda wuxuu sababaa bay yidhaahdeen gabowga qofka sigaar yacabkii bay leeyihiin 10 sannadood buu da'diisa caadigaa ka weyn yani wejigiisa iyo jacaabiidda ku yaalla iyo jidhkiisa markaad u eegto iyo da'da uu jiro marka laysoo eego yani 50 jirka sigaar yacabkii 60 jir buu la muuqaalayaa sigaar cabin 10 years cimrigaaga ka mid ah waayo unugyada dib u nooleeya jidhka renewalka ku sameeyo waxyeelaa saa daraaddeed shaykhuukha mubakira bay yidhaahdaan gabow degdegaa ku dhaca oo qofka kale uu ka horgaboobaa maxaa keena in dadku sigaarka cabo inta ugu badan dacfi iimaaniya isku dayasho inta badan dadku markuu dhallinyaradayay buu bilaabaa 12 jir mid kaloo cabayin buu arkaa wuxuu idhaa balkeen waxani wuxuu dhadhamaya eegne abaashuu buufiya hadhowna wuu u baahdaa diintoo dadka ku yar jahligoo ku badan oo waxaan uu ku socdo inuu sun yahay kansar inuu cabayo aanu ogeyn asbaabo badan baa keena waxyaabaha kan marka ayuha alaxiba darsiga kan iyaga waxaan ka soo naqliyaan badiye nusuusta sharciga amaan badinin waayo in badan baa wadaadadoynaa war waa xaaraan war waa kan waa iska wadaaddo kalea yidhi waa shubha iyo waa karaahiye sheekh hebel baa yidhi waxaa dunidu intaanay cilmiga bahalkan ogaan waa la muransanaa saynisyahanaduna waa muransanaayeen wadaadaduna waa muransanaayeen waayo waxa kani wuxuu geystaan la garanayn intuu leegiye
maanta sacidi ma muransana ninka murma maanta waa nin aqoon darra haysa bahalkaanu garanaynin sigaar iyo shiishad iyo kuwa maanu akhrinin waxa dunidu ka sheegtay laga qoray cilmiga la ayaanu arag saadaradeed buu muranka la soo taagay inuu yiraahdo waa karaahiye iyo waa kan iyo baabka inuu galo yani waa aqoon darro si haddaba qofkii cabayana cambayina isagoo og inuu isu sumaynayo ha ku dhinto kii iska daynayana uu iska daayay inuu waxaynu u sharaxnay waxyaabahay ka qoreen iyagu iyo ka yidhaahdeen ilaahayna wuxuu ina faray inayna nafteenna halaagin marnaba طيباتنا إنaynu cunno khabaa'ista iyo waxa xunna inaynu iskaga tagno صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله الشيخ سؤالها قار gabdhuhu ama kullitu wax soo diray ma qan gabar iyo kullitu qaar kood gabdhaha soo diray mobilkeygii hore shalay bay isticmaaleen marka su'aasha horeysa sheekh daawooyinka la isku cadeeyo oo dumarka isku cadeeyaan inkastoo mawduucan aysan calaaqo toos la lahayn laakiin kullitu waa ka agdhowdah marka maxaa darara oo ku jira su'aashaas lagu weydiinayaa waxyaabahan la isku cadeynayaa waa chemical aad jirkaaga ku bedelayso idan waxay leeyihiin waa sumuhu ka mid waliba wadannadana aan la baadhin waxa ku jira wadannada qaarkood wasaaraadkooda sixada xoog u baadha wadannadan qaarkood aan waxba la baadhin mararka qaarkood baa maadooyin radioactive ah mercury baa ku jirta xismariyaan qaar ka mid ah idan horta su'aasha koowaad waxay tahay qofka bini aadamka ah sidii alla uu abuuray inuu ku qanco weeyaan marka koowaad sanacada ilaahay waa wada qurux badantay sanacada alle wax fool xumi kuma jiraan waxaan ahayd qofka muslimkii inuu bima qasama allahu lah wixii alla uu gooyey inuu ku qanacsanaado walidalik inta aan ka akhriyay ee ku saabsiisan adawaatu tajmiilkaasi la isku cadeeyo waa inay sun yihiin aanay caafimaadkaagana u fiicnayn walidalik jirkaaga ha sumaynin muddo yar markaad isticmaasho waxaa dhacaysa diirka madow baa kaa tegaya caddaantaad xataa doonaysa yeelan maysidee waad gubanaysaa berber madow baad yeelanaysaa marka dambe xad baad gaadhaysaa dabku aanad u dhowaan karin kijada ma geli kartid oo hadhow wax ma karin kartid xad baad gaadhaysaa marka dambe duqsiga iyo xasharaadku ay ku cunaan idan waad sii soconaysaa ilaa aad baaba'do hamoodin labada wiiga hore aad cadcadaanka waxa aad u muuqatay inay sidan ku joogayso wuu isbedelayaa jirku totally marka waxaan kula talinayaa inaydan ismarinin wallahu a'lam sheekh su'aasha labaad qaadka waxyaalaha ugu badan oo runtii Kenya marka la joogo dadka runtii baabi'iyay caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba waa qaadka marka arrinkaas inaad dul istaagtid baan jeclaan lahayn su'aalaha la soo diray ka mid yihiin barakallahu fiik cidii balballaarin ka rabta waxaan odhan lahaa baa laga yaabaa netka inay ka helaysaan laba cajaladood aan qaad kaga warramayo chemically wuxuu ka samaysan yahay taariikhdiisa wuxuu ahaan jiray waddaduu soo maray soomaalida iyo qaadku halku ka soo galay siday u cuni jirtay hadda siduu marayo qaadku marka la soo duuduubo Europeanku dhawaan bay baxtigiisa bilaabeen bari hore 5 nin oo Scandinavian ay soo direen shantiina meelaha intay marmarayaan kana calaysay waa qolada scientific name-ka uu hadda leeyahay uu bixisay laakiin marka soo duuduubno qaadku hadda United Nations-ka wuxuu ka yahay drugsku ka mid yahay maandooriyeyaashu ku jira waa mukhadar
dawladaha reer galbeedna inta ugu badan mukhadaraadku ugu jira qolaba level uu ka taagan yahay waxa ka mid yahay qaadku maadooyinka ku jira caffeine iyo cathinone ba ka mid ah caffeine-ku waa qaatiin waa kath waa qaat bay u jeedaan caffeine qaatiin weeyaan iyo cathinone maadada la yidhaahdo waa maadad nerve systemka qofka khalkhal gelisa dabeetana jirkaaga dagaal aanu ku jirin bay gelisaa wax badan bay markaa sababtaa caffeine-tu waa ta khatarta cathinone-tu waa ta khatarta ta ka hooseysa xataa caffeine-ta ahi waxay ka mid tahay daraggan laga baadho dadka isboortiga cayaara adoobka laga baadho dadkan ordada haddii caffeine lagaa helo waa mulqi cayaartaadoo dhammi waa drug baad soo cabtay weeyaan cathinone-kana kaba kaalay uu ka sii sarreeya waxa uu sababaa waxyaabo tiro badan leh mawaad kalena waa ku jirta maalan suntan hargaa lagu magdiyaa qaadka ku jirta oo waxaan afka u cadaaday iyo ciridka iyo meelaha kale waxay u cadaadaan waxa ku jira sunta harga lagu magdiyo harga markay magdinayaan sumahay ku shubaan sun ka mid ah ku jirta waxa ku jira dee wuxuu u baahan yahay malaa waqti badan in la siiyo haddii la rabo in laga hadlo cala kulli xaal dee waxaa idinkaga filanaya qaadkii yurub lagayn jirayna soomaali 467 milyan oo gini bay u isticmaali jirtay Somaliland oo qurana 520 milyan baa laga isticmaalaa koonfuro ka ballaadhana intaad u malaynaysaa in lagu isticmaalo markaas dhaqaale dareer intee leeg buu inagu hayaa shaki kuma jiro inaanu wax badan sigaarka ka sokaynin inuu la nooc yahay shaki kuma jiro waa jirta culimadeenii hore inay qaar cuni jireen waayo lama ogeyn wax ku jira geed caadiya oo khudaarta ka mid ay moodayeen markii la cunayay anagu dee waqooyiga aanu joogno masaajidii hore qadiimka ahayd dhammaanteed masaajid waliba qol lagu qayilaa buu leeyahay masaajidii hore qadiimka ahayd waxyaabaa laga barakaystana uu ku jiray laakiin markii la ogaaday suntu yahay waa laga tegay culimadii way iska daysay iyo dadkii cuni jiray dhakhaatiirtuna aad bay wadigayaan bugaag badan baa laga qoray cala alaqal waxaa akhridaan buug yaroo nin soomaaliyeed qoray oo la yidhaha hadimooyinka qaadka maxamed cabdi daawud hadimooyinka qaadka wuxuu ka warramayaa bahalka iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo baaritaanadii cilmiga ahaa ee lagu sameeyey iyo waxyaabuu jidhka ku sababo xanuunada uu keeno cala kulli xaal waa sun isaguna hal iska daayo wallahu aclam sheekh xashiishka la farsameeyey oo sidii sigaarka oo kale wax yar loo duubay haddaan la badsan ka waran waa garateen baylatay waxa uu qosasheen xashu waa cannibal de waa marijuana waa mukhadar caan oo dee dunidoo dhan laga yaqaano inuu mukhadar yahay dunidoo dhan baa og marka dee mukhadaraadku ma bannaana diinta islaamiga wallahu aclam Are you allowed to drink alcohol? wuxuu leeyahay qofka haddii operation lagu samaynayo ama dhibaato kala qabsato in mararka qaarkood ma garanaysaa uu wax adiga alcohol inuu qaato cabitaan buu ka cabiri drink alcohol maxaa diinta ka qabtaa khamri in la cabo when you have operation khamrigu waa sun aydan dhakhaatiirtu waa sunta qura ee masmuuxa dunida ee la iibiyo ee dawladu iibiyaan waana sun maadaama uu sun yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay waa bukaane caafimaad ma keeno markuu nabigu yidhi waa xaaraan ayay waxay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisa dadka bukaanu ku daweynaa qaar baa yidhi wuxuu yidhi war isagaa bukaane dawo maaha qolo kale u timo waxay yidhahdeen meel qaboobaa baanu degannahayo waa isku yaro kulaylinaa ka taga buu ku yidhi
wax kasta oo sabab oo ay sheegeen wuu diiday nebigu kamaanu sameeyay wax kasta oo sabab oo ay sheegeen wuu diiday marka alcohol haddaad operation leedahayna ku caafimaadi maysid waa un dhib kale aad sii siyaadsanayso alcoholku dee waa quraanka uu ku cadiyay xaaraantinimadiisu isagoo ijtihaad wadaad maaha iyo wax loo baadhbaadhayo ma dhib baa keenaya mise ma keenayo binasi kitaab ilaahi buu mamnuuc ku yahay سدرت الكل سينما وبنانا والله أعلم. بسم الله. شيخ ضدك سيجار كعبة أما شيشة عبة إلا الليدو ولقول هذا الكلمات نقول ليديو دي أنت معك قبتها. ابن آدم قدين لما الليدو وحب الله شيء ليدو استوى لما يسمع قصة استفاع ما يدد ليدو يعني أنا نوحسو شيء oo iswaanino oo qofka wanaagaad ugu yeedhaba meesha taale in la liida meesha ma taalo wallahu a'lam sheekh ka waran tubaakada Soomaalida ay cunto waxaan u jeedaan cuntaan tubaakada lama cuno tubaakada halka la geliyo oo Soomaalida isticmaalaan oo bishinta iyo ilkaha dhaxdooda la geliyo ka waran bay ku leeyihiin markaan bilaabaya waxaan kuu sheegay noocyadka tubaakada loo cuno mid afka la geliyo mid sanka la geliyo mid qiiq laga dhigto la cabo wuxuba oo tubaako waxba soo kala reebi wuxubana xanuunada waa keena si kasta tubaako u cabtaa waa poison wallahu a'lam dad badan oo waxa jira runtii in loo duceeyo ama dhibkan daraagiska laga maaragtay ayaa haysta ama maartay shiishad ama dara ama xashiish ana dad baa marka dadkaas markii jalsada la dhameeyay loo duceeyo insha Allah taala way yeeli doonaa kalon sheekha ka codsanayna asaga musaafira dadka ducada codsanaya oo xanuunsan ama dadkoodii ba xanuunsan ama dad baa soo faray oo meeshaas shuyuukhda ay joogan ana looga soo duceeyo wal ducaa inuu duceeyo insha Allah taala asa Allah inuu Ilaahay subhanahu wa taala ka aqbalo bismillah alhamdulillah إلهي أنت بكتها عافمات خير غواسي أنت دبتها يستنا دبتها كقاضي دنبيجنا أنا الله داف دنبيجي والدك أنا الله داف حي مشاكل إنه كعبنا إلهي سبحانه وتعالى هنا قرقاض حي ونجان رجينا خير الله إنه حقيقي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم